walaal ilaahay dartii baan kuu jecelahay si wanaagsan ii dhagayso. allah subxaanahu watacaala dartii dad wax iskaga dayso, allah subxaanahu watacaala dartii haddaad meeshaa joogtid uga haajirto, allah subxaanahu watacaala wax ka khayr badan waxaad dartii u daysay in uu ku siinayo, ku bishaarayso. nebi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa isagoo ilaahay ka sheekeynaya buu dhahay, aabihii buu usoo bandhigay, aabihii aazara ayuu nebi ibraahim calayhi salaam usoo bandhigay tawxiidka iyo diinta. aabihiina uu qadi waayo wuxuu ku dhahay, yaroow haddaad iga tegi weydo ood ilaahyadeeda ii diin weyda aan caabudayo ya ama dhagax baan kugu dilaynaa ama wejigaaga iga qarini. markuu si kasta uu wax ugu sheegay uu aabihii maqli waayey, nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku dhahay, salaamun calayk, nabaddii ilaahay korkaaga ahaato. wuu iskaga soo haajiray, wuu iskaga yimaaday oo wuxuu dhahay nebi ibraahim calayhi salaam isagoo ilaahay noo sheegaya suuratulmaryam, allah subxaana watacaala wuxuu dhahay, ilaahay baan ku dhanshay aayadda nala dhegayso, wa actazilukum wamaa tacbuduuna min duuni illah, waan iskaga kin haajirayaa idinka iyo waxaad caabudaysaan ilaahay ka soko. wa adcuu rabbii, ilaahaygan anigu u yeedhanaya oo aan caabudaya, casaa anlaa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya, waxaa hubaala inaanan baryada ilaahay aanan mid shaqiya oo xun aanan ku noqonaynin. wuu iskaga soo haajiray, muxuu dhahay, ilaahay baa subxaana watacaala kasii sheegayna wuxuu dhahay, falammaa اعtazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illah. halka aynuu socono waa halkan. wuxuu dhahay allah markuu iskaga soo haajiray ibraahim dadkiisii, dadkuu jeclaa, dadkuu ka dhashay, magaaladuu ku dhashay, aabihii uu ka soo haajiray sabab ilaahay dartii. ilaahayna saasuu ku dhaafay may wax ka khayr badan buu ugu bedelay nebiyo, ambiyo oo ilaa maanta laga sheekeeyo taariikhooda ay ilaahay dhabarkiisa ka soo saaray. subxaana allah. wahabnaa lahu isxaaq wa yacquub wa kullan jacalnaa nabiya. ilaahay baa wuxuu dhahay waxaan u hibaynay nebi ibraahim calayhi salaam markuu iskaga soo haajiray aabihii iyuu ilaahay dartii uga soo baxay, waxaan u hibaynay isxaaq iyo yacquub oo aanu ka dhignay nebiyo. wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliya, u ilaahay dhahay subxana watacaala, waxaanan u yeelnay carab run ah, yani carab run ah. carabka hadduu been yahay waxa weeyaan cay, carabka hadduu run yahayna waa ammaan nebiyo ammaanan uu ilaahay dhabarkiisa ka soo saaray subxana watacaala. haddaba haddii aad walaal wax jeclaanayso, ilaahay dartii u jeclo. haddii aad wax samaynayso, ilaahay dartii u jeclo. u samee wax kasta ilaahay dartii ha kaa noqoto. sababtoo ah allah subxana watacaala muxuu dhahay, maalinta qiyaamaha dadka waalidiin wada soo xaadirini isagoo oo qof kasta malagna wado, malagna ku markhaati furayo, malagna hogaaminayo, malagna ku markhaati furayo. maalinta qiyaamaha nin baa la keenaya, malaa'igtii baa la dhahaya, ninkan maxaad ka aragteen? markaasi dhahayan, wallaahi ilaa khayr mooyaane wax kale kamaanaan arkin. ilaahay subxaana watacaala baa dhahaya, qaabta oo naarta ku rida, sababta oo ah aniga wejigayga umuuna samayn jirin, dad kale ayuu iska dhaadhicin jiray. subxaana allah. walaalayaal, wax kasta oo aad samaynaysaan ilaahay dartii u sameeya. idinka oo wax kasta oo aad samaynayso u sameey ilaahay wejigiisa, waayo haddii aad u samayso ilaahay wejigiisa waxaad helaysaa nimcadaasoo dhan, baraarahaasoo dhan. wax kasta aynu ilaahay dartii u samayno, allah ina jeclaado. ilaahay dartii baan inay jeclahay, ilaahay dartii ii jeclaada idinkuna. السلام عليكم.